Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed inta beeshkayga ku xiran iyo inta magaca Soomaalinimo ila wadaagto ay ku weyn tahay maqalkan iyo muuqaalkan la soo gaari doona bacda salaan qiimo iyo qaayo mudan walaalayaal maanta waxaan doonayaa qodob aan aniga ahaanteeda aad uga yaabay inaan ila wadaago qodobkan oo ku socda wiil Soomaaliyeed ay dhawaan kasoo ambad baxay asaga iyo waalidiintiisa dalka Soomaaliya haddana run ahaantii ku sugan galbeedka Yurub khaasatan dalka Holland ee qaaradda Yurub wiilkan oo dalka Holland ku sugan ayaa wuxuu siiyay idaacadaha ka howlgala gobolku degan yahay idaacad kamid ah warbixintaasoo sidaan u bilaawan doonta ila dhageysi wacan walaalahayga qiimaha iyo qaayaha iga mudan anigu waxaan ahay wiil Soomaaliyeed kasoo jeeda geeska Afrika ee dalka Soomaaliya waxaa la yiraahdaa magacayga Saciid run ahaantii halkan waxaan soo galay xilli qabooba ah dalkan Holland ayadoo tahay bisha 10aad Oktoobar aniga iyo waalidiinteeda khaasatan aabahayga waxaan halkan u imaanay nabadgelyo maadaama dalkayga hooyo Soomaaliya ay nabadgelyo ka jirin halkan baan wax ku bartay nabad iyo nolol baan ka helay hadeertan run ahaantii waxaan u ciyaaraa kooxaha yaryarka ah koox kamid ah ee gobolka Brabant aan hadeertan deganahay waxaan nigu wacay adinka idaacad ahaan aan doonayaa warbixin inaan iga siiyo waxay tahay dhawaan waxaa liga soo wacay dalka Soomaaliya dowladeeda dad xil dowladda ka haya ayaa isoo wacay aad baan u yaabay waxyaabaha ay aniga isoo bandhigeen taasoo ah inaan u ciyaaro kubadda cagta ee Soomaaliya qarankooda run ahaantii iska badaaye dalkan aan ku suganahay Holland inaan qaran u ciyaare kooxaha waaweyn xataa midna ima qaadan doonto wax aad aan ugu yaabo bay noqotay waxaan u maleynaya ciyaar inay tahay waxaan la wadaaga arintan aabahayga aabahayga ayaa wuxuu sameeyay inuu xiriir la sameeyo dadkii dib ugu celiyo telefoon haday meel wax wada dhigeen waxaa ka soo baxday inay ligu casuumay ciyaar dhici doonta bisha 12aad December 2020 7 bisha December ilaa iyo 19 bisha December 2020 ciyaartaas oo 12 dalood oo Eastiga Afrika kamid ah ay wada ciyaari doonaan anigana aan halkaas ka qayb qaadan doono walwal aad ay ahaaya aadna waan ugu faraxsanahay inay casuumadan lii sameeyay wixii awoodeeda waan dadaali doonaa laakiin run ahaantii waan fiirin doonaa meeshay igala dhacdo aniga saa la socotiin dowladda dalka Soomaaliya ee geeska Afrika waa hadeertan dal soo kabcaya dowladiisa waa dal hadeer federaal galay nabad u sii ambadbaxaya waa dal hadeertan la doonaya aan filayna shacabkeena Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta ku dhibanba inaan helno qof iyo cod iyo xornimo doorasho ah sidaad la socoteen walaalayaal waxaan arki jirnay madax dibadda ka timaada madaxnimada tartankoodana ku guuleysta oo fadhigooda cuntada ku cuna waxaan arki jirnay siyaasiyiin dibadda ka yimaado shaati aqoonyahan intii loo soo xiray haddana quudkooda dhib la'aan ku hela dadkii shacabkii oo dhiban oo quudkii UNICEF iyo meelahaas iyo dalal shisheeya haddana ay
saacidaadii xataa gaarsiin waayeen waa aragnay oo dowladii Soomaaliya lacagtii ku fakatay dhultoodii marsaday siyaasiyiintoodii. waxaan hadeertaan aan doonayaa aniga Yusra Cadeey inaan ila qaybsado aad ugula yaabay waxay tahay waxaan maqalnaa mar walba hebel baa jaamacad dhameeyo dhalinyaraayo shaqo weysan yahay dalka. waxaan maqalnaa dhalinyarada dhaqaalo fiican looma heeyo oo lagu soo kabciyo. laakiinse xageesa dowladda waxaa isweydiin mudan dowladda Soomaaliya siyaasiyiintooda xagee lacagta ka keeneen ee qof ku casuumaan dibadda jooga nabad iyo nolol sidaad maqlayseen walaalkeena Soomaali haysta yaa oo aqoonsi dal shisheeye haysta inay loogu hormariyo dalka dhalinyarada joogto talentiga ama aqoonta xagga ciyaarta yaqaana iyo wada qaybsiga adduunkana ka qayb gali kara. dadkaas ba looma heeye wax lagu kobciyay xagga dhaqaalahan kala laga keenay. adinka iyo riyaaqsigiinaan sugayaa walaalahayga qaaliga. intaasaan doonaya inaan ila wadaago waxaan iga tagayaana salaanta ugu qiimaha iyo qaayaha badan adduunka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.